بشير عثمان عود تليها سلديقة قلبي دي قروي كسو دو تياتر برودكشن waxaad dalbatay in aad waxyaabo badan oo muhiim ah aad umada kala hadasho sidaas la ajligeed ayaan anaguna isku daynay inaan fursad ku siino waxyaabaha aad doonayso inaad dadka kala hadasho marka hore ku soo dhawow shirkadda theater waa ku dhawahay shirkadda theater production waa ku dhawahay ana dalbaday in aan dadka la hadlo wax kale feeban jira intaanan hawl kala gelin waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa igu kalifay dadka qaba cudurka aniga hadda aan ka hadlay waxa way cudurkan ka hadlay waa cudurka HIV AIDS oo ummadda Soomaaliyeed dadka qaba iyo dadka dawada qaato ayagoo qaba dawada qaato iyo dadan dawada qaadan basan sheedka intuu marayo maxaa kalifay oo dibka inta la keenay aniga qaabkay ugu dhacay waxaan rabaa dadka ummadda Soomaaliyeed in la wadaago meel kasta af Soomaali ku hadasho inaan la wadaago waxaan rabaa aniga wixii soo gaaray iyo wixii aan arkay iyo intii hadda xanuunka aan la noolaa wixii ma garanaysaa aan la kulmay iyo dadka dhibaataysan oo saasoo kale xanuunka qaba waxyaabaha qofka bilaadanka naftiisa inuu ku kalsoonaan karo si aan ba ugu kalsoonaan inuu taliyaan ahay meel baan joogaa macnaha waxa igu kalifay waxa weeye waxaan arkay wax badan oo dhibaato ah oo geysanaya haddana dan aan laga lahayn oo bulshada inuu ku baraarugsanay waayahay waxaan jeclaan lahaa bal Bashiir ahaan qisada adiga ku soo wajahday iyo waxaad kala kulantay iyo marxaladda aad hadda ku sugan tahay bal sheekadaada inaad guda gashid anigu horta waxaan ku dhashay degmada Afmadow waxaan ku soo koray meel yada Buurdufo baadiyeed ilaa 97 Puntland baa joogay intii ka dambeysay askari baan ahaa marna taliyaan soo noqday mar askari caadi aan ahaa marba meel bay ahayd waan soo koobayaa taariikhdeeda hadda intaasan ku soo koobayaa أنا هذا روح أنا هاي تريا سلقة كنترول كقلبي ده جرو واحد أنا كهلا حنون كان وحيقول دعي وحيقول دعي لو يكون لحية طنكي بيش السداد أيام قبل أقول قبل أنا حنون كان كقالته وحنا إسكال حنونك لبي طبنات إسلا سنتك قديس marka waxaan rabaa intii ka dambeysay sidii wax u dhaceen inaan maartay warbaahinta la wadaago ummadda Soomaaliyeed ay dhageystaan qofkana waxa fiican in maartay wuxuu u nool yahay dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa marka marna ma doonayo in aniga wixii soo gaaray digniin inay noqoto kale kuwa hadda qabo kale sidee fursad u heli lahaayeen yaa kala fursad iyo ka banaan tahay macnaha hadda waxaan aniga tusalahan haddaan soo qaato dadka qaba xanuunka waxay dhan yihiin 11700 intaynan u guda galin arinta la xiriirta waanada guud iyo waxyaabahan aad doonayso dadka inaad la wadaagtid waxaan rabnaa marka horeysa bal inaan step u galno adiga qisadaada Bashiir ahaan barnaamijkan sidoo ku soo wajahay marka waxaan rabnaa inaan marka hore qisadii Bashiir inaan ka sheekeyno ka bacdina inaan u gudubno arimaha la xiriira dadka cudurkan qaba iyo waanada guud oo aad umada la doonaysid inaan galno marka hore waxaan noogu bilowdaa arintan gabadha sida isku guursateen marxaladda aad wada marteen isbitaalka markii lagu geeyay muxuu ahaa arintii masaajidka aad kala kulantay waxyaabahaas oo dhan sheekadaasi oo si kooban ah oo qurux badan inaan noo bilowday marka haddaan anigu taariikhdeeda ka soo hadlo gabadha waan guursaday waa dhistay waan aroosay magaalada dhinac ka deg adigu muddo 3 bilood markaan qabay ayaa xanuun baan dareemay jirka ah oo nafsiyan oo maartay anigoo maartay cuntadii soo celinayo xanuuno badan baan horta dareemay
haddii xanuunkaas muddo aan sidaa ahaa waxyaaba badanna waan arki jiray oo maaragtay gabadha oo dawo cunaysaan arki jiray marna uma qaadan inay xanuunka iyadu la noosho ana marna uma qaadan laakiin waxaan u qaatay waxyaabo kale waxbaa igu soo dhici jira kale waxaan arkay maalin baan hataa baaray fiiriyey kaniin baan arkay kaniinka muxuu yahay baan idhi waxay tiri waa xasaasiyadda loo cunaa weligeyna ma arag kaniin aan arkay maayo marnana ma soo dhigan cudurkaanaaba meesha maartay sida macnaha fahan la-aanta ugu qabay baan waxyaabaha ay keenay bay ka mid tahay inaan TV imaado soo fariisto ummadda islaamka oo dhan u sheego haddii saa dhacday markii anigu malahayga waxay noqotay inaan is iraahdo uur bay iska ilaalinaysaa ma wax saasaa jiro arrimo noocaas oo kale xagga dhinaca kale u qaata marna uma qaadan bishii 12aad ma habeenada ka mid ah ba xanuunkii soo ritay anoo ka maqan gurigii bay gabadhii hal mar guurtay boorsadeeda guriga uga tagtay xanuunkana waa ay hayaa haddii subaxdii aan guriga imid waxaan u imid boorsadeeda keliya guriga taala waa wacay oo maxaa dhacay baan idhi saas arrintaas maxay ku dhacday kelmadda iigu jawaabtay waxay tihi waa waxoogaa hadal baan dhex maray markii hore waxay tihi adiga sidaas waad dhimanaysaa bay tihi waad dhimanaysaa waa sumaysan tahay wax adigu hadallo badan baa uma qaadan marka aniga inay maartay xanuunkaas nin baa ila joogay markii ila socday sarkaal asna oo rabnay guriga inaan quraaciyo markaas shaqaana markaa ka tagnay ninkii waxaan ku yidhi niyo hadalkaasay leedahay ma gaarigay wax noogu xirta ma waxbaa jira see waxyaabo kale markaas qalbiga kusoo dhacay markaasuu yidhi niyo hadday saa leedahay anay xanuunkaa qabtaa ninkaa hadalkiisii baa anigu horta waxay geliyey iyo xanuunka i haya oo halkaa laabta iga haya dabadeed waxaa dhacday inaan iska soo tago boorsadeeda meesha ka soo qaatay reer kalaan lahaa reerkii kalaan imid habeenkii si fiican uma seexan waxay maadaama nina hadal igu yiri iyadana hadal igu tiri wixii waan fahmay hataa gaari waxbaan ka barbaaray inay wax ka jiraan kale waa gabadhii xaaska kale waxaan ku yidhi oo caruurta guriga joogtay gabadhan caruur ima hayn waxa dhacday waxaan ku yidhi inay caruurta jirtaan u malaynayaa khayr bay noqonaysaa waxay tiri khayr bay noqonaysaa waxa dhacday subaxdii markuu waaga bariyay oo 9 subaxnimo ay tahay baan anigu tagay isbitaalka ma aqoon meesha la iska baaro waxa dhacday waxaan bixiyay $1 waxaan idhi waxaan rabaa dhiig inaan shuba haddana ninkii dhiigiga qaaday waxaan ku yidhi war xanuunkaasaan iska baaraya dhiig shubadii waxaan u bedelay inaan ninkii war xanuunkaasaan iska baaraya iga baaryanaya waayahay yidhi mishinkii wuu la aaday nin garanayuu ahaa dhalinyaro ah wuxuu sameeyey waqtiga igu daahay saan ku soo noqday waan fiiriyey waxa sameynaya ninkaas dhalinyarada dad iga dambeeyay oo dhiig laga qaaday waraaqii siinaya anigana xoogaa dib ii dhiga waxbaan dareemay marka culaysna halka ka jiro ayaan dareemay marka waan u tagay waxaan ku yiri warniyo nin iimaan kala ma ahiye qof islaam aan ahay wax kastana oo qadarta rabbina waa kalsoonahay maxaa haday wax jiraan ma ii sheegtay aniga waxaan ku weydiisay waa garanaysaa ina keen biir gacanta qabtay warqadina gacanta soo ku wada ima dhiibin markaan sii socono oo maartay meesha ajayfiga lagu baaro xagiisu ila dhaqaaqay anagoo soo socono wuxuu yiri wahal waay marka niyo waxa weeye ilaahay baa wax walba keena waa hadallo maartay de dareemaysaa qofka maartay dajin oo ah buu xaggaas waxaan waxaan ku wareed horta kala cadee been ku sheegay markii intuuna wax ii sheegay waa baqay waa cabsanay warka markii la qarxiyay iyo markii kale laba ii ahayd waxa dhacday ninkii wuxuu yiri waa positive waa qabtaa laakiin anaga keena mid ka casirsan halkan yaala oo laga baaro dadka oo caadi oo xafiis u furan buu leeyahay
iigee baan idhi meeshuu igeeyey waa laga qaaday 3 waxyaabood baa lagu qaaday testi ah 3 waa laga helay dadkii waxa la yiri saan weeye u kaadi waa adigu markii maskaxdeeda waxa ku soo degdegtay laba maado gabadhan magaalada ku jirtaa habeen hore bay guriga ka tagtay magaalada wali joogtaa ma tagin iyo xaaski kale labadaas ay ugu soo degdegtay maskaxdeeda ku soo degdegtay laakiin inuu xanuunkaas ku dhacay kale culayska fuulay uu kamid ahaa bas yaa marka wakiil ku abaal dhaha qofka marka ugu horeyso oo maartay cudurka laga helo qof inuu wakiil ka yaa fiican nima ilmaadirna magaalada joogan u yaray waxaan gabadhina soo qaad xaas kale waa la keenay negative value ilaa cilmigiisa marka waxa jiray muddo 3 bilood xaaska markaan guriga imaado xanuun baa iska ka hayay xanuunka marka ma garanayo laakiin 3 bilood gabadhan ismaan aragba laakiin inta qabay dhowr jeer baan aragnay waxaan niyada markaas iri waa kulli waa in laga helayo negative value saan 3 bilood ismaan arag gabadhan waxa dhacday negative markii la yiri gabadhii xaaskaygi caruurta ay dhashay hal kelmad ay tiri kelmadda horta aniga ugu horeyso markii ugu horeyso oo qofka idajiyay lambar 1 ayada ahayd waxay tiri shirow dadkana ma dhiftid ummadana dib uma horseedid wax wanaagsan baad ka shaqeysaa inta badan intaan kugu aqaanano waxaan u maleynayaa bay tiri in ilaahay ku daraan maye istaji xanuunka aqabtid aniga meel igama maqno waxa igu soo degay marka qaab si automatic markiiba waxaan xasuustay markii suurada ooraysa nabi maxamed lagu soo dajiyay iqra lagu soo dajiyay ayaa waxaan xasuustay kelmadii qadiijo ku tiri bas salaad sunnah tukaday waxaan sameeyay gabadhii waan iska diray anigu waxaan sameeyay marka warqad message oo fariina baan u diray gabadhii xanuunka la ahay gurtay markaan u diray waa meesha kaliya maskaxdaan ka shaqeysay meesha kaliya oo gabadhaas ku qaban kara weeyaas waxa dhacday gabadhii message baan u diray message markaan u diray waxay tiri waxaan iri lacagti meherka ahayd baan ku hayaa lambarkaadana sahal ma leh ayada cadaan gacanta ku haya xagee kugu imaadaan inaan qabto qorshaygu wuxuu ahaa inaan qabto saa ujeedkayga marka dee waad garanaysaa qof wax ku cusub yihiin ana ma fadhiyo inkastoo iimaankayga iyo caadi xaaladayda caadi tahay haddana maantii hata xoogaa ma seexan jira ma seexan waxay tiri galabta isukaayo keen halkaa iyo halkaa okay baan weliba waxaan kaa rabaa bay tiri lambarka sahal ima leh inaad sahal ii furtid waayahay baan iri waan soo tegey gaari baan soo kaxaystay askari baan soo kaxaystay si iyadoo maaragtay nooc ciidan la diriray markii aragtay gaarigii soo gashaba warqadii furinka waa haystaa soo ma ahaa ina keen saan u sii wada stationka dhexaan ku tuuro stationka markaan soo geliyay waxa iyada kelmadii gal horta halkaa maxaa noo soo gelisay anna waxaan maxaa xanuunka igu rid saa markaas gacan bay ku jirtaa moogta ma aniga way naxday way isbedeshay si aad bay u soo bedeshay waxyaaba aan ka soo dhaafin way jirtay markii aan xanuunsan xanuun baa halka iga haya laabta aan oran jiray way ilmeyn jirtay maxaa yeelay markii hore way guursanaysay oo aniga aan guursanayo ismayl ahayn macnaha waxyaaba ku jiray baa iska bedelay inay qalad ku jirtay dareensaneed gabadhaas raas waxaan oran jiray malkumeedkii lagu sheegay maxaa la ilmeynaysaa meeshii markaan adi aan sugudaha soo geliyey oobiga waxaa la rabaa wax lagu geliyo qofka liskama xiri karo qofka dee maxaad ku dacweynaysaa bali anigu marka AJF iyo AIDS midna ma kala qaana war AIDS bay nagu riday gabadhaan xiraan qabta kii qalinka hayaaba intuu tuuray ba ordo ninkii rabay inuu wax qoro
bashiiro ma adag kugu dhaca ma adag kugu dhacay dadku way garanayaan dee sarkaal inta badan aad meesha looga yaqaan baan ahay askartii qaban lahaydna nin walba farow ka taagay cabaar ka bacdi baa raggii baan u yeeray warkaalaya eriyo waa la yimid oobigaa la geliyey magaalada waa iga sii horreysay marka waxa koowaad bayd dadkii aniga markii hore xanuunka iga baareen waxay yidhahdeen adaad u doorlay inaad qarsatid iyo inaad faafiso aday ku taallaa ana marka waxaan ku yidhi anigu marnaba wax la yaa wax qaran la yidhahda oon qaranayo ma jiraan laba maadaama u qaranayn anigu tuutaan u xirnaa wax kastoo dhacaya oo dalka ummadda soomaaliyeed oo dhan wixii xaggeeda ka imaanayo anigu tuutaan u xirnaa mid kalena way jirtaayo waxaan anu qalad iguma imaan guur buu igu yimid markii hore ayaan go-aanka anigu sii qaatay marka arrinta sidaasay ahayd waxaa loo yeeray dad ayada baara waxaa aniga laga helay lakin iyada lagama helin weli moogta oo markaas iyadu ma ii khirsanayd inay xanuunkan qabto ma qirsano waxaa loo yeeray dad ayada baara iyadoo station ku jirtaa waxaa loo yeeray dhakhaatiir way baareen waa laga helay CID iyo dadkii wareysanayay baa u yimid waxay tiri anigu ma qabin asaga igu riday tiri marka hore kelmadda markay tiri ayaa waxaan idhi war anigu waxaan arkayay anigu meel kalena ma marin dee meelo kaluna iga imaan kara waa suurtagal gabadha warkeede laakiin waxaan arkaan in sheegaya markhaati ah boorsadeeda kaniin baa ka buuxaani ana weligay arag way diidda marka guriga inay sheegto xaafaddii ay ku degtay maadaama aniga magaalada iga tagtay gurigay ku degtay lambarkeedii ayaa qofka u dambeeyey ay wacdo baan wacnaa lambarkaa magaranaysa ha anay la joogtaa gabadhaan ay la nosho gabadhii marka waxaan idhi boorsadeeda ma taalla haa si aniga marka aan shaki loo gelin oo aan loo oran waxaa sidaasay tahay waxaan u diray dad askar iyo dhakhaatiir isku jirto baan idhi boorsada soo qaaday gebigeeda waa la soo qaaday waxaa la keenay saldhigga way joogaan marka raggii maalintaas weliba waxbaa laga duubay laakiin anigu macnaha waan diiday markaas in gabadhaas ayadoo lagu xadgudbo boorsadeeda iyadaa gacanteeda ku furtay mise kaniin baalku wuxuu leeyahay laba nooc weeye nooc waxaa jira habeenkii keliya la laqo oo qofku markuu ageka ugu horreeya ageka labaad markuu galana habeenkii iyo maalintii habeenkii iyo subaxdii baa la laqaa noocaa marka habeenkii maalintii la laqo bay iyada cunaysa oo darajada koowaad ka gudubtay kii labaad darajada koowaad kii labaad bay maraysa waa qofka gogooye u badanta inta badan waxaa dhacday maxaa kuu kalifalay inaad inkirtid kelmadda waxay tiri anigu dee waa is adkaynayay tiri adigu warkii oo dhamaystiran waa laga duubay goormuu kugu dhacaalaya waktigaas ma yaa ogaa oo dadkeena ehelkaa yaa ogaa gabar walaashay keliya ayaa mas-uul iga ahayd bay tiri og oo magaaladaas ku nool inu magaalada inaan sheego ma rabo oo dadka aan wacyigelinay ka mid yihiin dadka magaalada lafteeda degan wixii waa igu dhaceen moogta wax colaad aan u hayana ma jirto de waa magaalo dadka soomaaliya ka mid ah waxaa dhacday aniga waxaan la hadlay aabaheed gabadha aabaheed baan la hadlay waxaan ku yidhi xanuunkaasi gabadha la nooshay ana xanuunka baa igu dhacay maalintii ugu horreysana adaan ku weydiistay gabadhaada waxaan igu tiri geel abaar waktigaas jilaal aad adag buu ahaa ninkii garanayaa garanaya waktigaas geel etoobiya loo sii wado oo halkaasoo maarata xoogaa wax ka da-een maarata baan sii wadaaya dee allah isku kiin qayru yiri ma ogeyn bi adeer laakiin wuxuu yidhi adeer hadday gabadheedi sidaas yeeshay warka waan helay inay qabtay garawana ku xidhan tahay laba maada adaa u door leh dee inaad waajibkaada ka gudanaysid gacantaaday ku jirtaay iyo inaad magtaada ku siiyo yidhi waajibkaa ka gudanayso aad tooganaysid waa tooganayso midhaa ka wadaa adi ad soo doona hawdha ku qaata isaga marka adeer waxaan ku yidhi haddaadna ogeyn waxna kulama jiraan anigu magna ma rabo xoolo kalena ma rabo saacaddan laga bilaabo gabadhana cafis bay iga tahay laakiin sidii waddada aan usoo marin lahayn keliya aan falankeeda qabanaya waxaa jirtay marka gabadha waxaa u yimid oo wax ka qoray CID da
maxkamadda si hawshaas maartay waxa la isku raacay oo inta badan maxkamadda toos looma geyn gabadha laakiin waxaa la isku raacay qofka noocaas oo kale ah oo sidaa yeelaya oo isagoo xanuunkii qaba noocaa samaynaya oo qof dilow la mid yahay hala togto marka maxkamaddii iyo CID-dii ani maadaama waxba iga soo go-ay waxaan is idhi gabadhan xaaskaada is noqotay amarkaana waa dhacay mana soo noqonayo kow wax kalena way jiraan oo dee wax marka culays oo isaaran maadaama ilaahay xaas kale ii fiyoobeeyey aan caafimaad ahay carruurteyda caafimaad yihiin sidii kaloo aniga aan wax ula dabaalan karaan loo dabaasha lakin gabadhan inaan cafi xag ilahay ka cafiyo aan waxba loo raacan bes warqad baan qoray saldhigana waa dhigay CID-dana waa siiyey maxkamaddana waa siiyey adigu rag igula taltaliyay way jiraan waxyaabo kale oo hadda aanan ka sheekeyn karin dad kale oo soo weeraray gabadha way jireen oo faamilka ah oo dumar u badan yiri oo inay dilaan rabay anigu marka waxaan sameeyey gabadhii gaari baan ku daray ilaa iyo muddaan la socdo si ay magaalada waddanka uga baxdaan markaan gaariga ku daray intay meesha ku jirto hawshaan dhammaynayana biilkeeda iyo waxeedana meeshaan ugu geyn jiray horta anigu sidaas horta igu dhaca marka aan kugu sii daray waan gudagala wixii marka arrintii baan sii gudagala waxa weeye dawadii baan u qaataa waad dareemaysaa nin buko boqol kuu talisa waxaa la yidhahdaa xagga lagaaga duceeyey xagga saas ahayd kana saas ahayd iyo caano geel cab iyo kaadi geel cab iyo adigu hawsha waa badanaysaa mogta horta qof ka biskooday ma haysaan baan yidhahdaa dad badan baa waxay yidhahdaan markay cayilaan waxoogaa dawada cunaan bay yidhahdaan anigu waa iga baxa ninkan waan kusoo baaraya baan dhaha waxaad ku biskootay baan rabaa markii arrimahaas ay kaa xalismeen kadib maxaa go-aan ah oo nafsiyan ah oo aad qaadatay adiga waxaan horta go-aan qaatay inaan shaqada ka tago dhinac kale inaan u rogo shaqada aan ka tago dee diinta barashadeeda iyo hawsha iyo inaan halkaa iska aado laakiin aanan arrintan ciidamanimada iska daayo halkaa ka baxo taliyihii booliiska markaa joogay iyo saraakiishii markaa joogtay ama qayb ha ahaato ama cid kalaba ha noqotee waxay ugula taliyeen inaanan shaqada ka tegin haddaad tala naga maqlayso annaga taladeeda qaadanaysana ka tegi misid baale shaqadaada joog weliba taliyaha booliiska waa magacaabaya ereg nin la yihahdo ahaa wuxuu yidhi aniga lacag hadda aan ku siiyo jeebka kaa siina ma hayo kama tegi kadib shaqadaada waad haynaysaa inta anigu aan joogana waad joogaysaa kuwii ka dambeeyeyna sidoo kale yidhi iyo kuwa hadda joogaba shaqadii sidii baan u haystaa meeshii saldhigii aan u joogaa uga shaqeeya haddaan waxaa leeyahay haddaan wax hagaajiyo marka waxaa jiray aniga markaa talooyinkai ugu dhashay waxay ahaayeen dee waa lagu talinayaa dad baa kugu imaanayo kuwaa miyi kaaga imaanayo kuwa magaalo kaaga imaanayo waxaa la yihahdaa idaha hilibkooda la cunaa xaggaa laga laabtaa marka anigu wixii o dhan intaan joojiyey baan dawadaysi toos u qaata waxa koowaad oon samey taas ahayd waxa labaadna ilaahay ii keenay baa isku xiro qof kasta haddaan arka hadda laba nin gabar iyo wiil wada socdo waxaan idhahdaa war horta isbaara intiina meel aadin macnaha su-aalaha koowaad aan samey maxaa dhacaysa xanuunkaas aan la noolay dadku way yaabaan waxay yidhahdaan ninkaan buuran oo noocaana beentiis way taasaan sameeyey wacyigelintaas iyo inaan ilaah isku xiro marka labaad waa soo xajiyey xajkii baan tegey sanadkii dhawaa sanadka haddaan sanad ka horreeyey 2000 iyo maxaan ku rahdaa 18 marka alxamdulilah rabb alcaalamiin intii ka dambeysay hal maraan isbaaray baaritaankayga waxaa la yidhahdaa wax intaa ka yar kolley dee hadda ma haye istaatidii markay sameeyaa waa wax daciifa ay ugu jiraan hay wuu nusqaamo wuu yaraada waxaa keenayana wax stress iguma jiraan inaan qof kale caawiyo oo aniga aan maaragtay wacyigelin iyo u sameeyo ma ahana wax aniga nafsiyan marka dadka markay wareystaan waxaan idhahdaa war xanuunka horreeya markii hore xanuunsanaa baan yidhahdaa hadda macnaha intuuna xanuunka ugu dhicin iyo hadda
markii horaan xanuunsanaa ee hadda waa caafimaad qabaa maxaa yeelay wax badan baa ii siyaaday waxaa diinta xaggeeda salaada soonka aad baan maartay halkaa ugu fiicnaa caqabado ma jiraan intaad hawshan aad ku jirtay wax caqabado ah oo aad haye maxaa kamid ah way jiraan 3 caqabadood baa horta garanayaa